السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلت وعنا ولا سنة ما نغيرت نداوسي لهات ميل باجوكتان قصر برنامج كيف نمو وهي هبين أوتا وهي ما أوتا وهي دور أوتا أي أوتا حد سلاتين دا عفان قبطان سود وادكو عاو برنامج كان عندي واندوا برنامج ير أو كمان وأنا برنامج حنون نقدنا دو إقرأ للنقضاء هبين والبو جماعة نقل صعدون إن شاء الله. برنامج كان عاو وحمرتي وقاه سكري سكاوا وفرانك دادير يا برنامج واني وسكبويا هل كان نقل صعدان وسكبوي فيلميس فضلا مركو هذه مرلات سو دواده تيدا kala deetahay markuu ugu saamqalka aad subscribe garay oo like tasaar oo share garay comment geli wax alla waxa jirta iskaga qor marka share garanaysa kiina baadiyaha joogay kiina Yurub aad gaarsiiya. welcome بسم الله الرحمن الرحيم. عاو waxaan ka hadlaynaa siyaabaha fudud maxaa keeni kara sida fudud oo qoysku uu ku burburi karo siyaabaha keena qoysku ku burburo maxaa keeni kara sababaha keena maxay yihiin waliba dhibaatooyinka haysta Soomaalida dad xiriir soo lahaa 5 sano ama 6 sano baa si fudud ku laga qeeyay qoys degan oo waxa laga yaabaa uguba oo waxa weey markay wax yar isqabaan bay kala tagayaan maxaa ka sababaha keena maxay tahay maxaana waxa weeye lagu soo gabagabayn karaa oo lagu joojin karaa oo lagu ciribtiri karaa waa isfahan iyo in la isdabeecad fahmo waxaan nagala soo xiriiri kadaan 47856661 wixii barnaamijkaas iyo waxa weeye tala wadaag nagula soo wadaagi kara aad iyo aad baad mahadsantiin soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba maxamed maxaad isdhihi kadaa siyaabaha maanta jira sababaha ugu waaweyn oo qoysku ku burburo sakiyo su'aashaada su'aal aad u qiimo badan loo baahan in la isweydiiyo waxa sababa laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan daawadayaasha qadarino si ilaa waxaan leeyahay ciyaar waa galin dambe jawaabteeda gaar ma dhiganaya saaxiib maxamed aad baad u mahadsan tahay haddana waxaan rabaa maxamed oo inaan dhageystayaasha bal mid iyo labo aan fursad siino dhageystaha koowaad baan rabnaa maxamed oo inaan soo qabanno halo dhageystaha khad ku jira magacaaga marka hore magacay waxa uu walaal Samra xagee ka soo hadlaysaa waxaan joogaa walaal boosaasan jooga gaaraan xaafadda Boosaasan niyo Boosaasan barnaamijka waa la socotaa filaya aad iyo aad Samra maxaad isdhihi kadaa siyaabaha fudud ay mataqaanaa ay qoysku ku burburo maxaana lagu xallin karaa waad isdhihi kadaa wallahi abada ku soo markay isqabaan waxyaalo badan waa in garatay maxaa kamid ah siiba waxa kamid ah gabdhaha yani marka yani gabadha waxa aad saxab baadisa aroos baadisa oday ka fasax qaadanayso waa ko markaas qofkii waa xanaaqaya ninkii soo xisbaya qofkaas waa hawlo kale iska aadeen hawlo kale aadeen sax kale hadana raguna gabadhi markay ashada guriga ka sameynayso midkii iska baxaya suuqa qasku faacsheenaya ayadana ashada diyaar waa loo filay suuqa ka socoshay taas oo mid laga xanaaqo nooti waa siyaabaha ay qoysku ku burburi karo waa labadaas siyaabo kale waxa jira badan ayaguna ay kamid tahay waxa jira in mataqaana hadda dadka xiriir kale oo kale waxa jira lamaane 5 sano 6 sano 7 sano xiriir soo wada laba sano iyo 3 sano meelahaas la soconayo markaas isleeyihiin profilka maxaa isaar weeyay Facebook maxaa aywaanka isii weeyay soo loo dadka marka iska badan tahay marka bulshada maxaad kula talin lahayd in ay mataqaana waxa way horta sidee marka lagu mudoobi karaa in kow in la isdabeecad fahmo in runtii waxa uu kalsooni la isku qabo marka kalsoonidu waxa ay ka timaadaa labada qof Soomaa kalsooni waxay ka timaadaa labada marka qof kalsooni yani dee qof isku kalsoon wax walba oo hagaagaya aad baad u mahadsan tahay sida quruxda badan aad barnaamijka nagala qayb qaadatay wana kaaga mahadcelinaynaa halo dhageystaha khad ku jira marka koowaad ku soo dhawo walaal barnaamijka magacaaga meesha ka soo hadlaysid magacaygu waa Ahmed Laki أحمد لك حاجة نجا سوا عيسى. وعقبت وعي ولا مجال غرب.
كعافدة ولا عبد قريعة aad baad u mahadsantahay waxaan u malaynay horta walaal aalada naga dhageysanaysid iska fogay ولا ما في داعي walaal waxaan u malaynay wala socotay barnaamijka أي هذا البرنامج gudagal barnaamijka walaal ولا البرنامج كنت كان وحياة كين كذا الله قفل معنا الله قفل شركة كذا حيو إنك طبعا واحد كين كذا نقول شركة تقول معايا صح واحد قالوا جرا نعطوا درس هو إسرائيلها صاحب أو إرجع صاحب وآخر نعم نقولنا صاحب وآخر صاحب وحي أخبار أيضا واسعكو هاي واقع سؤال erayga saaxiib waa siyaabaha keena in ay familigu uu si fudud u ku kala tago waayo waxa jira gabadhii hadda waxa jira gabdhihii waxay sameysteen wax la yiraahdo saaxiib mid walba markii xiriirka laga soo gudbo waxay ku leedahay waxaan leeyahay saaxiibkayga realiga ah saaxiibkayga nolosha saaxiibkayga waxa hebel boyfriends marka waa siyaabaha koowaad in ma taqaana ay ku kala tagaan qoysku markii gabadhi la yiraahdo ninkan wiilku wuxuu leeyahay markay xaaskiisa tiraado xabiib gabadhan maxay tahay oo kale uu leeyahay xabiib waa saaxiibtay gabadhan friends baan nahay isku meel baan joognaa waa ka gabadhi markii nin uu ninkeeda ku arko nin soo wacayo ay leedahay xabiib ninkan saaxiibkay weey siyaabaha keeni kara oo koowaad waa siyaabahaas badaysa Soomaa iyo in uu ninkii shaqadii loo igmaday uu gudan waayo taasna ay qoyska burburitaankiisa ay ku ka tahay waayo gabadhu gurigeeda cunto iyo bariis iyo baasto iyo in ay shopping hooyadeed iyo aabeed kama aysan waayin laakiin waxa ay rabtaa in waxa weeye shaqadeeda loo gudo aad baad u mahadsan tahay kaaga mahad celinaa walaal barnaamijka waa mahadsan tahay inta barnaamijka badinta waa kaaga mahad celinaa walaal maxamedow sidee marka sida loo soo afjari karaa maxaana dabargoyn u noqon karaa sidee ka daa wallahi zaki waa runta hawta aniga intaan kula fadhiya cawdan waxaan ku mashquulsanaa laptopka yar ma faantay ciladaha ay sababahaas waxaan u qaybiyay saddex su'aalood baan ka diyaariyay su'aashoodu waxay tahay maxaa sababa burburka qoyska waa su'aal koowaad oo jawaab u baahan sidee lagu xalin karaana waa jawaab bay u baahan tahay maxaa la gudbo dhalinta hadda jecel in ay reer dhistaan waa idan oo su'aal loo baahan yahay marka ku kala qaado maxaa sababa burburka qoyska waxaa sababa isfahan daro iyo kalsooni daro sababta wiilka marka ugu horeyso gabadha arko waa ku jeclay erey habaa jira ciyaalkii hadda way isdhahan jacaylka kalsooni buu rabaa ma fahanti wuxuu rabaa labada qof teeda kale waxaa taa keeni kara sababi kara xitaa in dhalinta tan hadda maanta isku daray badankooda ay tahay dhalin shalan ku arka maanta inay isguursanayaan inta saan arkay furinka badan gabadha waxaa ka soo 13 ama 15 sano jirto cunugar wada taagsa goroba maxaa keenay daada guurka maysan gaarin xilliga waxbarasho xitaa maysan gaarin xilliga waxbarashada dugsiga sarreyn la dhigato waa xag family ahaan way ka liidataa sababta gabadhi baa xidhata mobile galaxy wadato kabteeda dacaska laga la masaalka waxay sameeyeen WhatsApp ay galisa state bay galisa balay galisa gabadh baa soo nin baa soo wacay adoo nin raga saaxiibka ama adqaan ama aqoon baa lambarkiisu wax xareysan yahay ama maalin waxaan marqaati ka ahaa wiilii gabadh isdagaalay wax kale isku meestaan wiilka nin baa isdagaalay ninkaana isdagaalay state ka doon lambarkiisu ka turba isku haysteen oo xaqiiqatan ma fahamtay wax jira sababta gabadhi markuu ninka guursado dhibka jabxuya gabadhi waxay leedahay xorriyad baan rabaa oo xorriyadda markay rabto wadan bay ku tamsu gumaysi ku jirtaa way isfahan darada taasa sababta gabadhi waxay u aragtaa gabadha dumarka maxaa loo tagaa in guriga joogaan oo shaqada guriga ninka shaqada banka loo tagaa gabdhaha maanta jooga waxay jecel yihiin inay baxaan makeup marsan photography balay aadan dalxiis ay xor noqdaan ha arusiya aadan iska socodsiin ninka iska socoto oo iska warat meesha aad meesha ku bato ninka muxuu rabaa guri markuu imaanay wax walba diyaar jawiga degan ciyaalka la kala seexshay nadaafada guriga inuu u yimaado aydan waxay tahay inuu wax markuu baxay ka daba baxdo sababta koowaad oo jirta taas oo la xalin isfahanka iyo kalsooni meeshaas ay soo galin oo qaladaadka lambarada soo wacay gabadhu la waadum hadda ninka marka adiga hadda maanta bil matala ana gusto naagtu soo wacay ku tiraahdo ahayna miya waa naag baan gustata naagtu way ka hasa la ninka si walba naagtu u tiraahdo waa lay qabaa ma kaara wuxuu leeyahay markaas ugu macaan tahay buu leeyahay waxa Kenya raggeena hadda badan dhalinyaro waxay jecel yihiin la qabo bay jecel yihiin shakhsiyaad sababtoo waxay naag wax soo arkaynayo noo shaqo way bisleeyay waxay isleeyay naag dhaqaale fiican hayo way dhaqaale ku soo bisleeyay waa sababta koowaad sida lagu xalin karana waa sidaan waa in kalsooni loo helayo family isfahmaan oo rag 5 sano 10 sano isku qasad wax ka jira maha bafad in la isku kalsoon la isfahmo oo dadkii reerkii noqon ninka ka mid ku arko naadku uu cunahay dheeblaayo maxaa ka qaldan saasaan mii abu macaas ma ka raal loo tirado naagtu marka baxsho ninkii xajim ya baa dheeblaayo rabaan aado laba maalin kor u shaqo adoo kalsooni la isku si la isku raal noqdo bafad maxaa lagu gudbaa hadda guursan soo lan hadda guursan soo
waa in ay noqdaan dhalinta si ayaga u yihiin dad social media aad u isticmaala inay gabdhahuna saas u yihiin u isticmaala Instagram TikTok balaag dhan Snapchat way gabdhaha kaaga horeeya adoo faaraxa oo khatar meesha ku ha faaraxad kale oo khatarada hadan gursatid qasab ma inaad tiraahdo adiga maahan ka joog qadka isticmaal oo adiga aan isticmaal anu waxa ila qurux badan raga hadda dhalinta reer dhisar raba in ayaga shakhsi ahaantood in social media yaryar dumarkana yaryar sababtoo ah gabadha makeup-keeda wuxuu ka rabtaa qarash bay ka rabtaa internet kasta ma qarash buu ka rabaa bariiska cunada qarash buu ka rabaa shopping qarash buu ka rabaa waxay la isku fahmi lahayd maxamed horta aad baad u mahadsan tahay waa barnaamijyada jira la xalin lahayahay marka sida lagu xalin karaa waxa lagu xalin karo waxay tahay waa in hadda taan waxaan ku sheegay qaladaadkan la yareeyo naagta ninku kalsoonaado adigu ka muhiimadu almuhiima waa in kalsoonida iyo dabeecadda wax walba ku arko si nadiif lagu xalin karo alla yacsi in la isku fahmo waa aniga saaxiibkay Saki Boy waxaan nagala socotaan Saki Boy films meel walba joogtaan aad baan idin jecelnahay idinkuna jeclaada noo sii share gareeya barnaamijyadeena la socod wanaagsan barnaamijyo badan oo xiiso badan leh maxamed waxaad kaga tagaysaa dadkan saan noo soo eegay waxaan kaga tagayaa dadka saan noo soo eegaya fadlan hadii tahay markii aad ugu horeysaan daawata ama aragto waa inaad subscribe noo saartaa si aynu maalin walba soo aragno aan u noqotid saaxiibkeen noogu dhow dad badan oo camal aan baa jirto iska fadhiya baa jirtaan daawan ama subscribe kana aqoon ama qaab wax loo doodo comment loo dhibana fartaydidaas nagu xastaa wallahi waa ibn war waxay man noola man dhiman bay tiri ma fahantay dadka aan dhiman ha noqon keep going hora loo soconaya brada bari kama waxa laga yaabaa in adigu soo galaan soo karbashan kugu cusubna barnaamij ma fahantay horumar waan baalinaa dhalinta aad iyo aad insha Allah barnaamijkan dambe dad badan baa ku cusubin doona insha Allah socod wanaagsan